السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسود أول channel كصيال كميديا قضبتين وين ما أنتوا حايكليهين كدي بيشيس كيلو قارب مقالة نيروبي أحمد مدوي عبد الرشيد حدي وكل عبتين مقالة كسمايو عيسى دور حي سعيد مصمالي كوا كينيا لحد كسيحو ويستي دولة مريكان كو أقونستي ودرسشاد إسرائيل دينتا قلباد magacaygu waa maslax nasiib fadlan hadaan u cusub tahay channelkan subscribe noo intaas waxa ay qodobadeen wararkeena ugu door koron haatan ku soo dhawaada warkii faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaam oo helinayo xildhibaan Cabdirashiid Xidig iyo Sheekh Daahir oo kamid ah xubnaha isbeddeldoonka Jubbaland ee dhawaan heshiiska la gaaray dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo iyadoo la ilaalinayo badqabka bulshada waxa madaxweynaha iyo xubnaha kale ee safarka ku helinayay ee maray baaritaan caafimaad iyadoo madaxweynaha uu xarga ka jaray qaybo cusub oo lagu kordhiyay garoonka diyaaradda ee Sayid Maxamed Cabdulle Xasan madaxweynaha oo saxaafadda kula hadlay qaybta nasashada garoonka diyaaradaha ayaa sheegay inuu si wanaagsan ku soo dhamaaday heshiiskii ay dhawaan gaareen xubnaha golaha isbeddeldoonka iyo xukuumadda Jubbaland waxaana madaxweynaha uu hoosta ka xariiqay in danta shacabka ay ku jirto heshiiskaas oo aan shakhsi loo danaynin balse shacabka loo turay waxa madaxweynaha Jubbaland intaas ku daray in shacabka Jubbaland ay wada jir yihiin ku gaari karaan horumarka guud taasoo qayb ka tahay in wixii lagu kala arki doonaado wada hadal lagu xalliyo dhammaan dhinacyada ka qayb qaatay sidii xal loo gaari lahaa khilaaf ka jiray ayuu madaxweynuhu ugu mahadceliyay sidii ay u kor istaageen shacabka Jubbaland sidii midnimadooda iyo wada jirkooda loo adkeyn lahaa madaxweynaha waxa kale oo ka hadlay khilaafka Jubbaland iyo dowladda federaalka isagoo sheegay in Jubbaland ay diyaar u tahay waqti walba in wada hadal lagu xalliyo waxyaabaha lagu kala arki duwan yahay isla markaana dowladda federaalka ay qaadato doorkeeda la xiriira isku haynta dadka iyo sidii wada jir loogu wajahi lahaa qorshaha horumarka leh wararka kiimaan ay xadka kala qeybay Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegay in marka la xiisad u dhaxaysa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya laga dareemayo deegaanada dhaca xadka labada dal isadan dib soo cusboonaatay ayaa timid kadib markii la sheegay in ciidamada ka tirsan kuwa Soomaaliya ku sugan duleedka degmada Balad Xaawo ay gacmad ku tuureen dhanka magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari dalkaasi wararka ayaa sheegay in falkaas kadib markii ciidamada Kenya ay dhaqdhaqaaqyo cusub ka bilaabeen xadka labada dal iyadoo saraakiisha ka tirsan militariga dalkaasi ay sheegeen in ka hortagi doonaan haddii weerar lagu soo qaado dhanka kale ma jiro hadal ah oo ka soo baxa saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ku sugan gobolka Gado gaar ahaan duleedka Balad Xaawo oo ku aadan eedeyntaasi tani wixii markii ka dambeeyay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Jubbaland ay ku dagaalameen Balad Xaawo ayaa xaaladda xadka waxa ay ahayd mid ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo xooggan kadib markii wasiir janaal ciidamadiisa ay gaareen magaalada Mandheera Kenya oo xiriir dhow la leh maamulka Jubbaland ayaa waxaa lagu eedeeyay inay gabaadsiin wasiirka amniga maamulkaasi oo haatan baxsadka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya afayeen ku hadla wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Mareykanka ay u diyaar garoobeyso inay aqoonsato madaxbannaanida Israa'iil ee qayb ka mid ah danta galbeed ee dhulka Falastiiniinta iyadoo doonaysa inay ku darsato dhulkeeda arrintan ayaa imaanaysa iyadoo Washington ay isku diyaarinayso fulinta waxay ugu magac dareen heshiiska qarniga kaasi oo ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii Janaayo afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in ku darista qayb ka mid ah danta galbeed ee dhulka Yuhuudda ay ku dhici doonto iyadoo Falastiiniinta loo yabohay dalnimo soo waafaqsan shuruudaha gaarka u ah xaaladaha cabirka dhuleedka iyo taageerada dhaqaale dhanka kale toddobaadkii hore ayay qaramada midoobay iyo midowga Yurub iyo qaar ka mid ah dowladaha ugu waaweyn ee Yurub sida UK, France iyo Germany kaga digeen Israa'iil in dhulkeeda ku darsato qayb ka mid ah danta galbeed safiirka qaramada midoobay u fadhiya bariga dhexe ayaa ku tilmaamay tallaabooyinkan inay dharbaaxo ku yihiin xalkii lagu waday in laga gaaro khilaafka labada dowladood gudahantiisa ku soo gabagabaynayna wararkeena warkan warkii inta kulmi doona waxaan kaga tagay sidaas iyo amaana Allah